اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونزل waxaa digay lama qaala alyahuudu yahuud markay tiri inaka adugu muxamed ow tazcumu waxaad oranaysaa anaka calaa diini calaa milati ibrahima ibrahim diintiisa diintaas korkeeda aan kusugan tahay. wakana ibrahimuna wuxuu ahaa laa yaakulu midkaan cunayn luxuuma alibili geela hilbihiisi iyo wa albaanaha walaa yashrabu albaanaha geela caanihiisina waan cabayn bu ahaa. adiguna geela hilibkiisaad cunaysaa caanihiisana waad cabaysaa milatul ibraahimka ma sugnid marka wy markay saas yidhahdeen waxaa soo degay kullu طacaami dacaam kulligiisi wy kaana wuxuu ahaa xilan xalaalan xalaal buu ahaa libani israa'iila buu xalaal u ahaa wy awlaadu yacquub oo dhan buu xalaal u ahaa wy ilaa maakii mahana xarama israa'iilu israa'iil uu xarimay yacquubu nebi yacquub uu xarimay calaa nafsi uu ka xarimay fawal ibil geeli wey geela caanihiisii iyo hilibkiisii wey lamaa xiina xaalkiibuu naftiisa ka xarimay xasala lahu uu uxasilay nebi yacquub carqunasa waata carqunasa cudurka la yihahdo geestaanti oha jir geestaanta marka uxasishay wey nasa bilfatxi la akriya walqasri nasa wuxuu leeyahda waxa weeye o cirqun xil oo yakruju baxaya min alwarisi sinta kasoo baxaya fayastabdinu lfakida bawdadu markaas baatilkeeda soo gelaya waa xididkaas wey geestaantaas waxaa loo yaqaana fanadara wuxuu ku nadray in sufiya hadii la caafimaadiyo wy an laa yaakula hadila inuusan cunin caanihiisana inuusan cadin hilibkiisana uusan cunin wey faxurima caleyhi markaas ayagana laga asaga waa laga xarimay nadarkaasa looga xarimay awlaadiisa ka dambaysana waa laga xarimay wey nadarkaas wey nadarkaasna wuxuu ahaa muncaqidan fi shariicati wy wuxuu markuu nadarkaasi qabtay wuxuu ku nadray an laa yaakula axaba dacaami ilayhi walaa yashraba axaba sharaabi ilayhi wey dacaamkana wuxuu u jeclaanta badnaa laxmulhibili wey sharaabkana wuxuu u jeclaan badan caanaha markaas naftiisu ka xarimay wiilashiisana waa laga xarimay carruurtii tabacan lahu asaga laraacayo min qabli an tunzala tawreetu tawreed la dejiye horteedii buu xalaal ahaa wy dacaam oo dhan waa ka intaan tawreed la dejiyin reer bani israail xalaal buu ahaa ilaa midkaas maahan kaa un ma ahane wey uu nabi yacquub naftiisa ka xarimay oodiyala hilibkiisii iyo dacaam iyo caanihiisi ah wey tawreed la dejiye horteeda buu xalaal u ahaa wy laakin markii tawreed la dejiyey oo ay ku cayaareen wakaas markaasa waxaa laga xarimay bule umuur badan oo xalaalah wey wata ilaahay leeyahay badasabi dulmihim wakaas waxaa ladina haaduu xaramna kula di dufurin iyo dayibaatkaas bidulmi min aladina haaduu xaramna calayhim dayibaatin wy saasaan ka xarimnay wy min qabli an tunzala tawreetu tawreed la dejiye horteedii buu xalaal ahaa dacaam oo xalaalkaas dacaam oo dhan wey ilaa wixii nabi ibrahim naftiisa yani yacquub uu ka xarimay maahana wey wadalika nuzulu tawreedka tawreedka la dejintiisina bacda ibrahima buu ahaa anti xaaladan oo yacquub uu xarimahayo naftiisa uu ka xarimahayo waa bacda ibrahim wey tawreedna waxaa la dejiyey ibrahim bacdigiisa baalfi sanatin ka dambaysa kuntana wey walam takun ma ahayn bilay edishi geedo calaa cahdi nabi ibrahim ballankiisi zamankiisi xaraaman xaaraam ma ahayn wy fadeena la yaale xaaraam ma ahayn wy kamaa zacamuu say orteen wy ayagoo nabi kaasi ibrahim bu xaaraam ka ahbayena waa beentood waktigaas yii xaaraam ma ahayn qul lahum waxa u tiraa faatuu bitawraati bal lakaalada tawreed lakaalada wy fatluhaa akriya waxaa sheegaysaan ibrahim inuu ka xaaraamheed bal ka akriya wy litabayana ha cadaadee sidqu qawlikum qawlkiina runtiisa ha cadaadee bal akriya inta la timaadaan in kuntum saadiqiina fiihi qawlkaa fiigiisa kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin fabuhituu waa wareereen wy liannahum yaclamuuna waxay og yihiin ana taxriima alibili fiiha inama kana calaa cahdi yacquub inuu ahaa nabi ibrahim ba inuusan ahayn tawreed baa sao ka markhaati kacaysa lama imaan waana wareere jawaabkiina waa rado waxay sheegaan waa aqoon waayen wy lam yaatu biha tawreedii lama imaan qaala tacaala ilahay wuxuu yihi
faman iftaraa shaksigi been unta cala llahi ilah faman iftaraa shaksigi unta cala llahi ilahay korkiisa alkadiba been ku unta min bacdi dalika markaas kabacdina ilahay korkiisa been ku unta bacda duhuuri lxujati xujadii daahirideeda bacdigeeda ilaahay korkiisa been ku unta biana ataxriima xujada ay ku daahirta taxriimku inamaa kaana min jihati yacquub inuu ka ahaaday hilibka geela iyo caanihiisa la xarimidoodii yacquub jihadiisa inuu ka ahaaday laa calaa cahdi ibraahim inuusan ahayn markii xujadu saas ku cadaatay kabacdi shaksigii been abuurta ilahay been ku abuurta fa ulaaika kuwaas hum zaalimuuna kuwa dulmi faray wey almutajaawizuuna alxaqa xaqii kuwa gudbay wey albaadili u gudbay wey qul waxaa tiyaa sadaqa allahu ilaahay waa run sheegay fi hada tanfigiisa ku sheegay taxriimka ibisha la xarimay min cahdi yacquuba inuusan ahaaday ee ibraahim inuusan ahayn buu ku run sheegay ilaahay wey ka jamiici maa akbara bihi wuxuu khabray dhammaantiisiba la so-a wax allaala wuxuu khabray o dhan ba ilahay run buu ku sheegay ee fatabicuu raaca millata ibrahima wa nebi ibraahim diintiisa raaca allatii milado ana aniguba calayhaa korteeda an ahaaday wy oo fatakunu ad ahaataan markaas mutabiciina li kuwa iraacayaad ahaataan wy xaniifa nebi ibraahim mid iishay xaalu yahay maa'ilan midka iishay xaalu yahay can kuli diinin diin kulligiisa ka iishay ilal islaamina u iishay wy islaamka intikaa u iishay wy wamaa kaana ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay oo sharig yeela ku kamida maahayn fi amrin min umuuri diinihi wy aslan wa farcan ba wy waxaa ku sugan tacriid sarbeed yahuud baa loo sababaya inay iyagu mushrikiin yihiin wy aysan diin ba haysan ba wy wanazala waxaa degay lamaa qaaluu haddana yahuudi markay yidhaahdeen qiblatuna anaka qibladeeda baytulmaqdes qabla qiblatikum qibladiina kacbadaa horteedii bu ahaada waa in ka fadli badannahay wy ambiyaduna anaka inaga dhala jirtay wy saasay yihahdeen muslimiinta waxay yidhahdeen afdal meelka lianahum haajaru ambiyaai wa qiblatuhum wy wa ardul maxshari muslimiintuna waxay yidhahdeen kacbadaa fadli badan marka ilaahay muxuu soo dejiyey wy ina awala baytin beytkii ugu horreeyey beytkaas oo wadica la dejiyey mutacabadan ku lagu cibaado falanhaya xaalu yahay linaas dadkana loo dejiyey cibaadadoodi wy mutacabadan linaasi dadka midki lagu cibaado falinhaya xaal dadka ku cibaado falanhayaan fil ardi ardada fiigeedana lagu dejiyey laladii beyti waya bibakata maka ku sugnaa wy waa kacbada maka ku taala kaasa ugu horreeyey wy bilbaa ila akriya luqatun luqa way bakadu oo fi makata ahaatay marka luqa iyo baka iyo marka labada la yihahda wy laladii ki wayo wadica ladena wala baytun wadica lilnaas loo dejiyey fi lardi lagu dejiyey laladii ki way bibakata ku sugan wy sumiya makadii waa la magacaabay bidaalka bilafdi baka baa lagu magacaabay liannaha kacbadu makadu tabukta waxay burburinaysaa acnaaqa aljabaabirati kuwa wax dirbinahaya xaq la-aanta wax ku dirbiya luqmahoodi wy oo waxaa leeya nin oo jabbaari uma soo qasbin ilaa waa halaagsamaya ay tadukuhaa waa burburinaysaa wy banaahu baytkaas waxaa dhisay almalaaikatu baa dhistay qabla khalqi aadama aadam la abuuristiisa horteedii bay dhiseen bialfay caamin 2,000 oo sano ku horeysaa wy kacbadu nabi aadam abuurdiis wawadica bacdahu waxaa la dejiyey alaqsa baytkiisa maanta badnaa baytulmaqdis wa baynahumaa waxaa ahday 40 sanatan min sanatin oo sanayaal laakin waxay leeyihiin markii malaaigtu dhistay maahan iyo wa nebi aadam baa kacbada dhisay markuu 40 sano la joogay kabacdina baytulmaqdis buu dhisay waa taasuu dhisay sidulaqsuu dhisay marka kabacdina wy kamaa fi xadiisi saxiixin ku sugneed wy wafi xadiidin waxaa ku sugnaa anahu baytku macnaa makaankiisi meesha kacbada ku taalo inahu ana makaanahu baytkaas oo kaasulaha weeye kacbada makaanku ku yaala awalo maakii ugu horreeye wey maagoo dahara daahiray calaa wajhi lmaai biyaha wejigooda ku daahiray cinda khalqi samaawaati samayaalkii iyo walardi ardada la abuuristeeda agteedina daahiray wy zabadatan burcad xaalu yahay xumbo baydaacad wy faduxiyat ilardu ardadii baa la fidiyey min taxti baa laga fidiyey hoostiisa wy oo ilaahay marka hore wuxuu abuuray meeshan waxaa ugu horreeyay leeyihiin oo biyaha markaasuu dabayl abuuray
dee dabayshiyaa biyaha ku dhifatay xumbadaas aa ka timid xumbadaas yaa waxa kaa meesha xumbada ku dhacdaa waxay ahayd kacbada meeshaay ka dhisan tahay meeshaasa ardada laga fidiyey markaa kabacdina taasna wey samadii dibdaas markay noqotay oo aan weli la fidin waxaa ilaahay abuuray samada marka kabacdina ardadiiba la fidiyo saas inahu taas ina makanahu baytka macna waa makaankiisi awalu ma dahara wixii daahira kii ugu horeeyo calaa wajhi lmaai ku daahiray cinda khalqi samawati walardi zabadatan burcadna xaaliha bayda fadixiyat lardi baa la fidiya min taxti hoostiisi baytkii ugu horeeyo la dejiyey dadka baka ku yaala wey mubaarakan baykaasi mid la barakeeyey xaalu yahay xaalun min aladi baa laga xaalay laladiida idaa barakatin baraka baykaasi mid u saaxiiba xaalu yahay wey wahudan haadiyan ku hanuuninaya xaalu yahay lilcaalamiina makhluuqiinta leannahu qiblatu muqbiladoodii wey oo makhluuqa qibladiisi wey fiihi baykaas waxaa ku sugan aayaatun aayaat dalaa-ilu waadixaatun calaa xurmatihi wey ixtiraamkiisa iyo fadligiisiya mata ziyaadadiisi calaamaad waadixa baa ku sugan wey minhaa aayaatkaas bayinaatun calaad wey minhaa aayaadka waxaa kamid a maqaamu ibrahima nebi ibraahim makaan ustaadiisi ayilxajaru dhagaxii baa kamid a aladi dhagaxoo qaama calayhi nebi ibraahim uu istaagay cinda binaai lbeyti kacbada la dhisi jeda agteedi marka kacbada dhisahayo wey faasara qadamaahu nebi ibraahim labadiisa gomadood waxay saameeyeen fi xajarkaas wey oo labada lugood labada gomadood baa galayba dhagaxa gaasata ila lkacbayna wey wa baqiya asarkaasina waa baaqi noqda dhagaxi baa labadii gomadood sidii ugu taallaa ilal aana intii laga gaaro haddeer intii laga gaaro maca tadaawuli zamani zamanka dhirirkiisana lala qabo wa tadaawul aidi gacmaha isku dhiibidoodana lala qabo calayhi wataas xajarkaasa isku dhiibideen wey wa minhaa waxaa kamid a aayaadka bayinaadka ku sugan tadciifu lxasanaati xasanayaalkii lalaalaabidiisi lalaalaabidoodii figiisa lagu laalaabayo oo camalka lagula yimaada acmaasha kawaa ka fadli meelaha ka lagula yimaada waa ka fadli badan yahay wa minhaa waxaa kamid a ana dayra shimbirkii laa yacluuhu baykaas inuusan kor noqonayn wey korkiisa mari maayo kacbada qifki lama mara shimbir wey bal idaa qaabala hadduu soo qaabila hawaaho wahuwa fi ljawi asagoo kusugan wey isagoo hadee taas hawada duulahayo hadduu soo qaabilo inxaraf canhu waa reerdoomahay yamiinan aw shimaalan wey walaa yastadiicu ma yiwaado an yaqdaca hawaahu inuu gooyo ilaa idaa xasala lahu shimbirkaas inuu uxasila maahana maradun fayadkulu hawaahu budalaha litadaawi isku daaweeyo usoo gelahaya wy waman dakalahu shaksigee galah baytkaas wey kaana wuxuu ahaanayaa aaminan waakaa mid aamin hu noqonaya wy laa yutacaradu ilayhi loo bambixi maayo biqatlin dil loogu bambixi maayo aw dulmin loogu bambixi maayo aw gayri dalika loogu bambixi maayo wy walaw qisaas ma ha noqdo kana xaaluhu fi ljahiliyati saas u ahaa jahiliga saas u ahaa fakana rajulu yaktulu waa kaas wa yadkulu lxarama falaa yatacaradu lahu axadu ma dama fiih ama bacd islaami marka islaamka bacdigiisi falxukmu ana alqatila waka in qatala haduu dilo fi xaramka uktusa fiihi waa lagu qisaasanahaya ama khaarij haduu ku dilo oo marka uu soo dilo lagu qisaasan mahayo maadaama fiihi cinda abi xaniifa laakin shaaficiyada waa lagu qisaasahaya bay leeyihin nabadgelinahayo walilahi ilahay waxaa usugnaaday wataas xajulbeyti waxajulbeyti beyti loo qasdidiisi waajibun lilahi ilahay mid u waajibay wey cala nnaasi buuna ku waajibay dadka korkiisa ku waajibay wy beyti in loo qasto wy bikasrihaa xijulbeyti wafadxihaa xajulbeyti luqataani oo fi masdari xaja ahaadeen wy xajadaas macnaa qasada wy wayubdalo min annaasi waxaa laga bedelahayaa man istidaac baa laga bedelhaya waxajulbeyti beytka loo qasdidiisi waajibun lilahi ilahay mid u waajibay wey cala nnaasi buu ku waajibay man calaa man buu ku waajibay istidaaca yiwaada wataa sabiilan min sabiilin ilayhi ilaa qasdihi wey beytka loo qasdidiisi wey beytka loo qasdidiisi jid u woodo wey ilahi ila xajilbeyt markaas u laabanhaya wey man calaa man buu ku waajibay istidaaca yiwaada wataa ilayhi ilaa xajilbeyti beytka loo xajintiisa sabiilan min sabiilin yiwaada dariiqan min dariiqin u woodah wey fastarahu sala allahu alayhi wasalama sabiilkaas
wuxuu ku fasiray bizaadi buu ku fasiray nabiga soo iyo waraaxilati raaxilo zaadna waa hilibka wuxuu cuni lahaa waa daabadu fuulinha waa haystaa markaas xajki waajib buu ku yahay rawaahu waxaa wariya tafsiirkaas alxaakimu wagayruhu baa wariyey waman kafara billahi ilaahay shaksiga ku kufriya o bima ku kufriya faradahu ilaahay uu fard yeelay oo min alxaji ah wey fa in allaha ilahay macnaha ka kufrigiisa ilahay wax ka dhimi mahayo wey halkaasa macnaha fa in allaha hadda ilaahay wuxuusa wax uga dhimay ganiyun ku deeqtoon way can alcaalamiina makhluuqiintu ka deeqtoon yahay alinsi waljini walmalaaikati wuu ka deeqtoon yahay wa can cibaadatimna waa ka deeqtoon yahay wy cibaadadooda ilahay waa ka deeqtoon yahay asaga hawel bu haystaa wy qul waxaa tira yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiyo lima shay ma takfuruuna biaayaati illahi ilahay aayaadkiisa aad ugu kufrinaysaan alqur'aani qur'aanka maxaad ugu kufrinaysaan wy aayaadkaas oo tusinahaya calaa sidqi muxamedin bima yaddaci wuxuu sheeganayo oo min wujuubi lxaji wagayrihi ah maxaad ugu kufrinaysaan wy wallahuna aal shahiidun caalimun kii ogu yahay ma tacmal ma tacmalun waxaad camal falaysaan ilaahna waa ka markhaati kacaya waa og yahay waxaad camal falaysaan fayujaazikum caleyh waa inku amaal marinhaya qul waxaa tira ya ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisa lima tasuduna maxaad u reebeysaan tasrifuuna maxaad u iilaysaan can sabiilillahi ilahay jidkiisa can diinihi war diinkiisa maxaad uga iilaysaan oga reebeysaan man shaksi aamana rumeeyey shaksigii rumeeyo ficilhaan u rumeeyey maxaad diinta uga iilan war diinkaan ka bax maxaa uleedihin qofkii doonhaya hadeer inuu rumeeyo lagi weli aan rumayna maxaad uga reebeysaan labadaba wy man aamana bilficli iyo man araada alimaana min alkufaari labadaba wy oo waxay ahaayeen mu'miniinta kuwa xeelaysanaya inay diin islaamka ka bixiyaan qofkii inuu diinta soo doonahayana waa ka reebi jiren war wuxuu dayn maana ka hadlay dhihi jiren lima tasuduna maxaad u reebeysaan tasrifuuna maxaad u iilaysaan can sabiilihi can diinihi man shaksi aamana rumeeyey bitakdiibikum beenintiina sababteedii maxaad ugu iilaysaan annabiyi aad beeniseen iyo wakasmi nacmatihi nactigiisa laqarintiisa sababteedi wey ila sifada hadday sheegaan waa kaas ama iyaga rumeeyaan waa ahlulkitaabka iyo dadka dhan waa rumayn lahaa wey takdiibkaas sababtiisa maxaad ugu iilayseen buli annabiyi aad beeniseen iyo wakasmi nactihi nactigiisa laqarintiisa sababteedi wey tabguunahaa xaal aad dalbaysaan jidkii taslubuuna sabiila jid xaal aad dalbaysaan wy maxaad u reebeysaan idinkoo jid dalbahaya ciwajan mucwadatan jidkaas aad dalbaysaan mid qalloocan xaal yahay wy gaalnimadaa wy masdarun bimacnaa mucwadatan wy ciwajan mucwadatan tu qalloocanna xaal ay tahay sabiishaas maailatan mid iilan xaalaa tahay jidka aad dalbaysaan can xaqi ka iilan wy wa antumna xaala shuhadaa caalimuna kuwa caalimiina aad tihiin kuwa og aad tihiin biana diina diin almaradiya ee laga raadi noqday alqayima oo toosan diinulislaami islaamka diinkiisa inuu yahay saas adinkoo cilmi ku leh maafi kitaabka sida ku tahlaya wama allahu ilaahay maahana bigaafili mid ka tegaya camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan oo min alkufri gaalnimaha watakdiibi beenin a wey wainamaa yuakirukum ilaahay waa ina akhirahaya ilaa waktikum waktigiini waktigu in kugu talagala ciqaabkiisa inuu akhirahaya liyujaaziyakum inuu inamaal mariyo daraadeedi wey wanazala waxaa degay lamaa mara bacdulyahuudi yahuudda qaarkeeda markuu soo maray cala alawsi walkhasraji waa ansaar labadii qabiil ay kakoobneed wey oo fagaabahum yahuuddaas uu carab geliyey ta'alufuhum isku dulmidoodi wey isku jeclaade ta'alufuhum isku dulmidoodi wakaafa uu ka baqay min sootooda cala yahuudi hadday isku dulmeen hadda isku walaashadeen inay yahuud baabi'iyaan uu ka baqay wey oo fadakarahum uu xusuusiyey markaas aws iyo khasraj bima kaana baynahum baynkooda wixii ahaa fi ljaahiliyati wixii ku ahaa oo min alfitani fidrayaal ah balaayadii iyo gabayaalki iyo hooday isku dhiiseen iyo dagaalki iyo wixii uu xusuusiyey wey oo fatashaajaru aws iyo khasraj ay doodeen wakaadu ay u dhawaadeen yaktatiluuna inay dagaalamaan ba waxaa soo degay yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla iyo rasuul rumeeyeenow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqan fariiq oo min aladiina kuwii kamida uutul kitaaba la siiyey waa yahuudi iyo nasaare yarudukum ina ahaysiiyeene min bacdi imaanikum imaankiina bacdigiisa kaafiriin kuwa kufriyey kuwa ilaahay ku kufriyey baa ina ahaysiinhayaan yarudukum ina ahaysiiyeene bacda imaanikum imaankiina bacdigiisa kaafiriin wy wa kayfa sidee baa takfuruuna ukufrinaysaan waaba yaabe see ukufrinaysaan wy
استفهام تعجيل يا بجرنتي استفهام كذي وتوضيح هيدارنتي وتان استفهام كذي إنكارتي وحدم بسوي كذا استفهام كذي ورساء كفرنيسان عقل وسيتين هنا كفرسان وأنتم لا تطلع لا أخرنا هي عليكم كفينا الله أخرنا هي آيات الله إلهي آياتي أيها آيات إلهي كفينا الله أخرنا هي ساء كفرنيسان وأيابه وفيكم أن تجحدين حال فيها رسوله إلهي رسولك سوء كسواني هيوي أيضا انت الله كسوان تاج ساء كفرنيسان آيات إلهي القرآن تاز الذي وتبين الحق من الباطل وفيكم رسوله الذي يبين الحق ويدفع الشبه فكيف تدخل عليكم هذه الدسيسة والدسيسة اليهود والطه دائما صوت سمع وجود هذين الأمرين عندكم أن يقول به اليهود ومن يعتصم شخصيه عكاس وقبصده يتمسك بالله بآيات بالله إلهي أيضا بالله معناه بحبله إلهي حبله في قرآنك قفكي قبصده فقد هدي وألا هنونيي إلى صراط جبا له هنونيي صراط مستقيم توصل وهو الحق المؤدي إلى الجنة أسألوا هنوني حتى هلك أسألوا هنوني قفكي قرآن ناس قبصده بعض اليهود كافوحوا شاك من الذي كليون عبارة الخالد قال زيد من أسلم صحابي يسوح يري مرة شاك وحو صامري ابن قيس اليهودي وكان شيخا بوها أضي عظيم الكفر قال لميس أي وينتي شديد الطعن تريد فأيضا على المسلمين فمر بنفر بصامري ومن الأوس والخزرج وهم في مجلس يتحدثون فيها يوم مجلس وكشة في سنة استعل فقابهم وحا عرجلي ما رأوه أعطيهم من ألفة وصلاح ذات بينهما في الإسلام أي كوسو بناتي بعد الذي في بعضه كان بينهم من العداوة في الجاهلية وقال وحو يري نفسي سكوليها فأسكشة في سنة هذه امتلأ هذه جتمع وحاكمي ملأ بني قيلة تودي قيلة الذي تلي ويلش يلي جمع الواكمين وهمر ولا بشيء بهذه البلاد يحكم والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا حتى كل من أنك يهودي من قرار سغنان ونصغنان وأنا بابينها ونغرها يا مش فأمر شابا وحو أمر من اليهود كملا وكان معه فقال اعمد إليه وبلو قسم بلو تق وجلس معهم فريسو ثم ذكرهم خصوصي يوم بعاثة ما لنتي بعاثة ومال دقال انت كدعي هو كدعي ويقول الله وما أنت خصوصي وما كان فيه يوم كان فيه يسويها هذا خصوصي وأنشدهم كل إنشاد بعض ما كانوا يتقولون فيه ما أنت أصبح يسوق قولين ومن الشعار شعريان هو وكان يوم بعاث وحا يوم بأهاروه اقتتل فيه الأوس والخزرج أي كنت تعلمين قبل بعد بعثه النبي انت مصدحين ولكن وحتور ب120 سنة بليته انت هو سعودي وكان الظفر فيه للأوس بأصول على الخزرج أصبح ما انت أساسي ففعل ويلكي سيد وخلق فتكلم القوم ما عندي ذلك ما كويس الخلق باقوم قاعد الله والله وتنازعوا وتنازعوا وضودين وتفاخروا وكفان وغضب الفريقان ويعرضين جميعا وقالوا يا السلاح سلاح والركن نوقار موعدكم الظاهر ليس الظاهر والحرة ليس شيء المولود عن سقوط من يرهدون فخرجوا إليه ليس يؤتقين وهذا الدقال بأسهم فبلغ ذلك رسول الله بسود جاري فخرج إليهم وأوضح النبي في من معه من المهاجرين تنووا حتى جاءهم فقال وحيا معشر المسلمين أبي الدعوة الجاهلية مياه جاهلية دعوتي وتافي يا هي صلحي بمياه وأنا بين أظهركم مياه تصل إيمانكم بعد أن أرسلكم الله في الإسلام ثم في إلهي فكرانية بعدي وقضى عنكم من تبدوي في صلاة الجاهلية في جاهلية علسي وألف بين قلوبكم بينكم واسكدوا بيوي لا ترجعون ما وحد الله بنيس إلى ما كنتم عليه كفارا وروح الله أيضا الله ولله كبغ فعرف القوم وحي يقولون أنها نزعة ويل كان شيطان كاهي إنه أها وكان نزعة فساد ومن الشيطان كاهي وكيد إنه هذا من عدوه فالغوا السلاح خبكي بيتورين بين أيديهم وبكوا وأويه واعتنق بعضهم بعضا وانتوا أسلق مسين وانت الدرجات أسوأ وأسكل لغمة والغوا مسين وانصرفوا من صرفوا واجدوا مع الرسول الله سامعين رسولك وقت مغلي على مضيعين قال جابر وحجري فما رأيت يوما معك أغبح حمان بلن أول كيسي وأحسن وانا بلن آخرا من ذلك اليوم فأنزل الله مكاس إلهي أيضا دجيوي هذا إلهي سود دجيوي يا أيها الذين كوا آمنوا الله يرسل الكميين واتقوا الله إلهي كبقى حق تقاتل بجد حق لك كبقى
وبقيت إلهي لقى بقى حق محيطها بأن يضاع إلهي وإن لا ضيعه ولا يعصى وإن لا عاصي ويشكر وإن لغو شكريه فلا يكفر عن لغو كفريه ويذكر إلهي وإن لا حصوه فلا ينسى إلا من حتى تعظى تغاطي ومن داسوه مركز سوى إلهي وإن لا ضيعه يوم العاصي المركز لغو شكريه عن لغو كفريه وإن لا حصى عن لها المعنى بهو فقالوا وحيران صحابته يا رسول الله ومن يقوى على هذا ومن كان يكون ولد يا بأواب له تاتي إلى اليوم متى فالنسخ بقوله تعالى بالغن الصحيح واتقوا الله إلهي كبغى ما استطاعتم وحد ولد كسانون أنا ده ولد وحد انت ولد كسان إلهي كبغى ولا تموتنها بمننا إلا وأنتم حال مسلمون موحدون أسين مهن دينكو إلهي كلي إلهي مهن يتلاها كل مننا واعتصموا قبصنا تمسكوا قبصنا بحبل الله إلهي حربك أي دينه إلهي دينك قبصنا كتاب في هوا قرآن هو حبل الله المتين وقرآن هو وسبب النجاة فريد السبب يدوي جميعا مجتمعين كوكل مي حالتهم ولا تفرقوا بعد الإسلام الإسلام كبعد يتكلا تجنينه تفرق بعد الإسلام ساعة النفس النقلين وذكروا بالخصوص نعمة الله إله نعمة إنعامه إله النعمين في خصوص عليه النعمين يا معشر الأوس والخزرج أوس إذ وقتنا أولي النعمين كنتم على هيدين قبل الإسلام إسلام تهرتي أعداء على اليال على هيدين أدفع هيدين فألف إلهي وحو كل مية جمع وحو كل مية بين قلوبكم وقلوب تنبوا كل مية بالإسلام لكم كل مية فإسلام تبدأ سيرجع الله تيهم وأصبحتم وحالاتين فصرتم وحالاتين بنعمتي بإنعامه إلهي النعمين تسا إسلام بدو يكون نعمة يسرب كذي ما وحا كوهاتين إخوانا ولا لا في الدين ولا لا كوها يقول ولاية تحريرين تقول وكنتم وحالا هيدين إسلام لماذا هرتي على شفا حفرة وكجد درفتي سبا هيدين على ضرف حفرة وكجد درفتي في دانتي سبا هيدين جد دانتي سبا هيدين ومن النار جد كاسي أهون جد النار دانتي ساسار نيدين وإنه ينكدر كل عمان وحلين كبحيوي ليس بينكم أذنك وبين الوقوع فيها نار اللغد معهن إلا أن تموتوا إن الدمتان معها كفار حالتهم إذا دارا حتى الدمتان ما في بوا كل عير هيدهم فانقذكم إلهي وإن كريي منها شقدي كاسو هو حفرة ذا جد كاسو هو ضربت لي إلهي وإن كريي بالإيمان يقولون كريي كذلك سداد كما بين لكم فيه لا يكوعد ما ذكر وحي لصوشي ما يبين الله لكم آياتي سإله من كوعد بين هياء لعلكم تهتدون إن هذا المقاطعة درادين والتكن والتوجد هل هلو منكم حقنا هل هلو أمة هل هلو أمة يدعون الناس ذكي وعي إلى الخير وعي الإسلام وعي ويأمرون بالمعروف فرعيه وينهون عن المنكر هذا ورد ساسا الله يسهلوا أولئك كوا الداعون أو وعي بس خيش أقول الآمرون فرعيه معروف أنه منكر هذا هم المفلحون والليباني والفائزون والليباني ومن كل تبعيدهم كل معا لأن ما ذكر وحال صوشي وإسلام ماذا خيش ذكر الوير أو معروف الله فرع أو نهي قال لقريبا من هي لقريبا بلي هذا فرض كفاية إسكاكافين في فرق وفرض عين معها لا يلزم كل الأمة كل لازم هاي ولا يليق بكل أحد نوع سلم هاي كالجاهل ومثل سمعت وقف جاهل حكم سوى جاهل جاء كاتو مبا ما نانو يقول لأن الأمر بالمعروف لا يليق ما انتما هي إلا من العالم بالحال حالة الشخص يقال ما خرطة وحو الريبة هي إنه حرامي هي يقانا المعروف وحو فرع هي خير كان إنه هذا شريعة أصل كله يقانا وسياسة الناس يقانا حتى لا يوقع المأمورة مثل الفرعية والمنهية مثل الهوية في زيادة الفجور يكرر له وغير من زائدة ولتكون أمة ورأمة كل جنب أمة هذا هذا مبني على أن فرض الكفاية على الكل أمة ضمن ولا خطاب هي لكن وحو كل عياب بفعل بعضهم ولا تكونوا أهاننا
كالذين كوي أوكلها أهاننا تفرقوا كلا تجي عن دينهم دين كلا تجي دين أصول شيء تأسوق خلافيه عن أصوله دين كأصول شيء تأسوق خلافيه. فالمقصود النهي المؤمنين عن الاختلاف في أصول الدين فروع ضمنها إلا أن يكون فرعات مخالفة للنصوص البينة لأجل قوله عليه الصلاة والسلام واختلاف أمتي رحمة وأمته أي هذين فروع سوء خلافته المجتهدينته وهذا الرحمة وأن حريصه فمن اجتهاد فأصاب الحديث وكذا خير لو أجرب ليه كانت منها لا أجرب ليه هو أصول الدين كواحد خلاف للدين هي كاسو يمك هلاك فين هي واختلفوا اختلافين فيه في أصول الدين وأصول خلافين من بعد ما جاءهم البينات هو على العذاب مكة أي ماذا أنت بعد الإسرافي وكوا صلها آنين وهم اليهود والنصارى تفرق كل منهم فرقا قال الله أكثر وقد اختلف كلهم باستخراج التأويلات الزائغة وتكميل الآيات النافعة وتحريفها أساسا متى تقروا من الأهدو أولئك كوا مختلفين تاهي لهم عذاب بينه عذاب كاسو عظيم وين وأخرج أبو داود وحبه والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 مد بيدارات فرقة وتفرقت أمتين على 73 فرقة مد كلا بيدارات أيضا زاد ابن ماجه عن عوف بن مالك فرقة واحدة في الجنة صدق إياه صدقات فرقة هذه فرقة بأهل الجنة وسنتان وسبعون في النار بأهلهم قيل وعلى يا رسول الله من هم واقوى قال الجماعة ومسلم كم يشهد بنيه في رواية الحاكم عن عبد الله بن عمر قيل وعلي ما الواحدة قال ما أنا عليه اليوم ما أنت أنوح عن هاي وأصحابي طريقة قرآن قاصي وجوده هذا سر بيان وعقائد لسوق رافوه اذكر بالحصى كقسي يوم مال تبيض وجوه وجيال أعضان أيام وتسود وجوه وجيال مدلان أيام يوم القيامة مال كذا كقسي مال تصل الحصى فأما الذين يكون اسودد وجوههم وجيال كذا مدلانين وهم الكافرون وهي فيلقون في النار بالوجه لهيه ويقال لهم وحالوا لي ما في النار تلوجه لصوابيقهم هيداري أكفرتم ورما كفرتين بعد إيمانكم رمينتين بعد يدي يوم أخذ الميثاق بلن كاللقب شدي 80 كذا أرغميتين وماشي على الصدر ربكم ما في إلهي قالوا بلا وأولى ودي كل واجر أيضا قالوا بلا ما أنت أصلا والحرمي مرحة بعد على الكفرية مرحة كافرين مرحة بعد الكفرية إلهي وحوله ورما كفرتين إيمانكين بعد يوم أخذ الميثاق أرغميتين فذوقوا العذاب هذا أساسيتين عذاب كالدمية بما كنتم تكفرون بسبب كفركم كفر النساء وما بسبب كونكم أهاشه إن السبب سيدئوا الدمية تكفرون وكفر هذين وأما الذين كوا ابيض وجوههم وجيالكم ويعضارين وهو المؤمنون مؤمنين ففي رحمة الله فهم أيقوا مستقرون كوا كسوا وفي رحمة الله إلهي حريصه نحريص إلهي كوا كسوا كواسوي في جنة إلهي جنة سكوا كسوا هم أيقوا خالدون فيها جنة في ذلك كوارها يوي هذه الآيات آيات كانوا كوانه المشتملة كل على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار كل آيات الله إلهي آيات سوي نتلوها وأن أخرجنا عليك كركان كواخرنا يا محمد بالحق بنا حال آيات كاس أي كلهين أما أنك حالا كلها آيات إلهي ونتلوها حالا أخرجنا عليك كركان يا محمد بالحق بنا حال كلهين وما الله إلهي ما هم يريد في دون هي الظلم للعالمين الظلم ما بقى الدين هي بأن يقوم ظلم محيي وصح بين عالم كظلم يقال ظلم إلهي كما وسلطه بأن يأخذهم وإن قبطا قفك العقابة بغير الجرم من ذنب لأنتي سوي حتى صاصي نفسي الإلهي الظلم ما هنا دوها ملكي لكن مخلوقة إليه سوى حلوه يقال ظلم إلهي صحيح فخصاص الزمين إلهي
walilahi ilahay waxaa usugnaada ma fi samaawaati samayaalka fiigooda waxaa kusugan wa fi lardi ardada fiigooda wixii kusugan baa ilahay usugnaada milkan mamluukiina kuwa la hantay xaalay yihiin wa khalqan makhluuqiina kuwa la umay xaalay yihiin wa cabiidan marbuubiina kuwa loo rabiyay xaalay yihiin wa ila llahi ilahay intikaaba turjacu lumuur umuurta loo celinaya turad lumuur ama tarjicu lumuuru tafsiru lumuuru umuurta ilahay intikaabay u laabanaysaa wy kuntum waxaad ahaateen ya ummata muxamadin muxamed umadiisiyey fi cilmi llahi ilahay cilmigiisa waxaad ku ahaadeen fima laa yazaal maxfuudka wuxuu ku yaalay waxaa cilmiga ilahay adberigaa ku ahaateen khayra ummatin ummad kuwa ugu khayr badan wey ummadaas oo ukrijad la bixiyey udhirad la daahiriyey linnaasi linafci nnaasi dadka nafcigoodi iyo masaalixdooda loo soo daahiriyey wy umadaasaad ugu khayr badantiin wy waayo hadda khayrkii waa kan wixii lagu ahda taamuruna waxaad amraysaan bilmacruufi macruufki waa khayrkii baa la cadaynhaya umadu khayrkay leedahay maxamudiyada watanhawna can ilmunkari baad reebeysaan hadina waayo hadii khayrki meesha ma yaala watu'minuuna billahi ilahay baad rumaynaysaan iimaanan mutacaliqan bikuli ma yajibu an yu'mana bihi wax allaala wax in la rumeeyo dhan ay waajib tahay wy wa min rasuulin wa kitaabin wa xisaabin wa jazaain ah wy taasaad rumaynaysiin wy walaw aamana hadday rumay lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka ahalkiisaad u rumaysan hadday u rumay lahaayeen lakaana aliimaanu wuxuu ahaan lahaa khayran ku khayr badan lahum iyaga u khayr le saas u ahaan lahaa iyaga ictiqaadkooda mid u khayr badan buu noqon lahaa wy min aliimaani bimuusa wa ciisa faqad wasliya la rumeeyo taasaa ugu khayr badnaa lahaa wy minhum waxaa kamid a ahlulkitaabka almu'minuun ahlulkitaabka laftiisa waxaa kamid a almu'minuun kuwa rumeeyey wy kacabdillahi bni salaamin radia allahu canhu waasxaabuhu asxaabtiisi wey cabdullah bn salaam yahuuda kamid a iyo najaashi iyo asxaabtiisa oo mina nasaara wy hadaasa kamid a wa aktaruhum ahlulkitaabka agsarkoodi alfaasiquuna alkaafiruuna kuwa kufriyey wy lan yadurukum ina dhibi mahayaan yahuudi wy ayir yahuudu yahuudi yaa macshara muslimiina muslimiinta jamaacadow bishayin shayin ka dhibi mahayaan wy ilaa adan dhib mahan adahaasoo bilisaani ahaaday carabka ahaaday alkalatu lisaankaas ah wy oo min sabin caayid ah oo waciidin goodi ah weliga un goodigaas iyo caydaas ahaynhaya wax len ka dhibi mahayaan wy laa yasilu ilaykum minhu shayin wainama huwa mujaradu laqlaqati lisaanin wain yuqaatiluukum hadday yahuudi in la dagaalamaan yuwallookum inay jeediyeen aladbaara duburyaalka inay jeediyaan munhazimiina kuwa jabay xaalayhin hadi waa markii diinta lagu toosnaa markaa diinta looga liita ayagana lala mid noqdeen hadi waa kan waa muslim oda magac ayagaa wixii islaamka sheegan ha ayagaba utaliyey markaa meel kasta oo qaalib noqday markii un diinta lagu tusona si ahayd uwey wain yuqaatiluum hadday in la dagaalamaan dalan soo qaada yawallookum inay jeediyeen aladbaara duburyaalka munhazimiina xaalayihin uma laa yunsaruuna loo gargaari mahayo calayhim rubiina looga gargaari mahayo bal lakum nasru nasriga adinku inay sugnaaday calayhim korkooda adigaana adinka nasriga iskale wy duribad calayhim korkooda waxaa la yeelay yahuud adillatu dulli baa la yeelay aynamaa meel suqifuu laga helaba xaysu bujidu meel allaala meeshii laga helaba dulli baa la yeelay falaa ciza lahum cizi uma sugnaan walaa ictisaama dhawridma uma sugnaan wy meel kastay joogaanba wy oo hadda waktigii hore waxayba ahaayeen bu leeyahay adiladoodi waa ka wa ihdaaru nafsi walmaali walahli wy nafteeda hadur bay ahayd meeshay labadoodi maalkooda waa laga qaadi jiray aankooda waa la lay jiray waa la dumaysan jiray wy ama diladu waa inaka laa taraa fi yahuudi ku arki maysid waagii hore on saas diinta lagu toosnaa malikan qaahiran walaa ra'iisan muctabaran bal hum mustadcafuuna kuwa la daciifsaday ahaayeen bayna almuslimiina wanasaara fi jamiici lbilaadi labadiba adere utaliya duribad calayhim idilatu baa la yeelay aynamaa meel suqifuu kaas laga helo wujudu xaysu ma wujudu meel allaala meel laga helaba falaa ciza cizi lahum yahuud uma sugnaani walaa ictisaama ictisaam dhawridna uma sugnaan lana dhawri maayo waa lagu dilahay meesha laga helo wy ilaa kaa'iniina xaal ay ahaadeen ma ahane kaa'iniina xaal ay ahaadeen ma ahane bixablin xarig
ومن الله إلهي حديث كهذه وحرج إلهي عهد إلهي وحلوه وتوين إسلامان بالذي وكنزل ليس مكاسي إلا كائنين على هذا المهن بحبل بعهد بلا ومن الله كهذا إيمان فيه وحبل إلا بحبل حالة هذا المهن حبل قاصو من الناس حج الدك حديث كهذه المؤمنين كهذه وهو حبل قدك مؤمنين كهذا عهدهم بلا مدود ويا إليهم أنت هذا يهودي مغلب بلا بالأمان أمان على أداء الجزء في جزء كل شيء والجزء بحية أمان هلا الأمان باليوم هي بقى في إيران ونصاصه أنا سؤال الأمان باليوم وتدل يوافقك لكن اعتصامك ولا النبي اللي هي اعتصامك بليها كهر عياشه شو هروح هذا بقى يدل يوحي دمارة بقى لكن حبل كان وحي فايدين هي دول يادو وكاس مغنجلية كليه هو مثل المؤمنين تتأهل وهو عادهم إليه من الله الله بالأمان الغرب لنا على أداء الجزء في جزء نقول شيء أي لا اسم تقورد لهم ومصر اسم لا غير ذلك أسليك يساوي أما عزهم فهو منفي أبدا دائما وأبدا فهو مشاهد مرة إسلامي عز مرة مكسور وباءوا ويلاتين رجعوا ويلاتين بغضب على حالي كل حين ومن الله إليه حديثة أهاتين وضربت عليهم كتب الله عليه المسكنة مسكين لمؤول طبعا أن اليهودية يظهر من نفسه وحو كظاهرين هي على فقرة وإن كان غنيا مؤسرا بقى عليه فقر وكم مقامها يوم مسكنة ذات مسكين ما ذات عليه أكثر الفقر ذلك المذكور كاس من ضرب الذلة والمسكنة وغضب الله لأنهم بسبب أنهم أيقوا كانوا إلى هذين السبب كذبوا أهذا يكفرون وكفرنا بآيات الله وكفرنا آيات إلهي وكفرنا إلى هذين السبب كذبوا الذلة هي مسكنة هي الله هي أبوله هي غضب كاسو ويقتلون الدلة هي هذنا الأنبياء أنبياء بغير حق الآن تجرى في اعتقادهم هي اعتقاد كلنا حق الآن قتل أهل هي النبي قتل جيت وحنا حق الآن ما هذا لكن أيجا اعتقاد كلنا حق الآن فيها يوسف وين حق الآن هي هي ويقتلون النبيين الدلة هي بغير حق الآن ذلك مذكور كاس ضرب من ضرب الذلة والمسكنة وغضب الله تأكيد ذلك الورى الوسع كين هي بما عصوا بسبب عصيانهم عاصمت للسبب كذبوا هذا أمر الله عاصيا وكانوا بسبب كونهم شو بسبب كذبوا هذا يعتدون كل حد بأيهم يتجاوزون الحلال حلاشة كود البيع يعني الحرام بالبيع حلاشة ما يسكرنا بحرام هذه هذا سبب كذبوا هذا ليسوا سماه